Soomaaliya waxaa la xuquuqtihiin kuwii hore isku tababar waa inay ahaatiin isku miisaan ahaatiin isku fursad ah heshaan laakiin saraakiishii maalintii la tababarayay sidaan u sheego kale haddaan idin sheegaya laba meelood kama wada tirsanaan kartiin haddaa ciidanka ku soo biirteen nabad sugidda Soomaaliyeed waxaad tihiin ciidan nabad sugid Soomaaliyeed warkaas war cad ma qof aan diyaar u ahayn miyaa hadda idinku jira maya maadaama aan laba meel wada laga tirsanaan karin waxaa u dhaarateen qarankiina waa inaad ka shaqaysaan magaaladan nabad inay ahaato Soomaali oo dhan ay isu timid maalin walba diyaarada timaado adduunyada dhan ay isu imaanayso dhuusamareebta aad taqaaneen ma aha galgaduudda aad taqaaneen ma aha galmudugta aad taqaaneen ma aha waa galmudug adduunyada indhaha ay ku hayso adduunyada u furan rajo badan ay ka muuqato dawladnimo laga rabo walaalihiin iyo xaasiskiina iyo caruurtiinuna ay ku manfaacadsan doonaan idinkaa degan meesha idinkaa la rabaa inaad quruxsataan magaaladiina ma qurxanaanayso haddaan amnigeeda la isku haleyn karin hadda waa ka sii daran tahay marka waxay cadowgu isku dayayaan inay horumarka ka hor tagaan idinkana waxaad tihiin kuwa la rabo horumarka inay keenaan walaalaad tihiin kulligiin ma lihidina qabiil ma lihidina qolo ma lihidina koox waxaad leedihiin qabiil la yidhaahdo ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed waxaad leedihiin ama tihiin ama ka tirsan tihiin qabiil la yidhaahdo Soomaalinimo iyo qarannimo maadaama waxa ugu qaalisan nolosha oo ah dhiiggiina aad ogolaateen inaad bixisaan dhiigga waxaa loo quuraa wax wanaagsan keliya waxa ugu wanaagsanna waa dawladnimo waa Soomaalinimo waa qarannimadaas ayaan anaguna sharaf iyo karaamo idinkugu haynaa waa taariikh isqoraysa maanta waxaan arkaynaa marka isfasiraysa oo cidda lagu qoraayo buugeeda idinka aad tihiin taariikhdaasaa la rabaa inaad baal dahaba ka gashaan wiilashiina halkan jooga iyo gabdhahaba waa idin hambalyaynayaa waxaan aad ugu faraxsanahay sida aan markii hore sheegay in horumar halkan ka muuqdo in maalintii hore aan idiin imid iyo maanta aad kala duwan tihiin waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo aad inaad u foojignaataan amniga magaalada soo shaqadiina inaad laba jibaartiin fikirkiina aad sii badisaan ciidamada kale aad kaalmaysataan dawladda Soomaaliyeed raalli ay idinka tahay waa inaad ogaataan hadda wixii ka dambeeya haddaad caafimaad u baahataanna dawladdiina idiin joogta haddaad tababar u baahataanna dawladdiina idiin joogta haddii wax idinku dhacaan qoysaskiinana dawladdaa laga rabaa daryeelkeeda waa xuquuqdiina waajibaadkana waxaa ugu horeeya laba qalbi inaadan lahayn laba qof inaadan ahayn hal meel oo lagugu soo hagaagay inaad leedahay waajibaadku waxa waaye wixii lagu faray inaad gudato shaqadii lagu diray inaad ka soo baxdo kala dambaynta ilaalisaan saraakiishiinaani waxaad muhiim u tihiin idinku inaad tusaale u noqotiin ciidanka intiisa kale kuwiina madaxdaana waa inaad cadaalad ku hogaamisaan la abaal mariyo qofkii sameeya wax dadka kale aanay samayn karin rajo badanaa ka muuqata galmudug rajadaasi waxay xaqiiqoobaysaa haddii idinku aad u dhaqataan qaabkii lagu xaqiijin lahay waa aragteen dadkii nooga yimid xeraale iyo huurshi habeena dhawey oo aan imaan halkan 3-4 sano laba isla dhalatay isku ooyeen kuwa is dhalay isku ooyeen idinka dartiina u yimaadeen iyo dadaalkiina iyo amniga aad samaysaan iyo sharafta iyo albaabada aad u furteen magaalada sidaas oo kale aan rabnaa adduunyada dhan inaad isugu keentaan haddii ilaahay waa mahadsantahay